waxay tahay bishan aan ku jirno waa bishii muxaram ama aan inagu saka dhahan sanadka hijriga ah waa bisha u horeysa bishani waxaa jira cibaadaad si gooniya ugu xidhan oo loo baahan yahay inaan ku baraarugno waxaa nabigeena ka sugan sallallahu alayhi wasallam inuu yiri afdalu siyam ba'da ramadan shahru llahi al-muharram soon la soomo ramadaan kadib markii ramadaan laga yimaado soon la soomo waxa ugu fadli badan soonka bisha muharram bishan soonkeeda ugu fadli badan taasi waxay tilmaamaysaa cidii kari karta inay bisha badankeed soomto intuu awoodi karo ruux inuu bisha ka soomo taasi fadiiladaas ay tilmaamaysaa waxa iyadu si gooniyo mudnaan u leh laba maalmood oo maalinka bishu 9 tahay iyo maalinka ay 10 tahay maalinka ay 10 tahay waa yawm ashura nabigeena ka hor salawaatu rabbi wa salaamu alayhi intaan la soo saarin jahiliyadii carabtu way soomi jireen nabiguna sallallahu alayhi wasallam magaalada madiina markuu yimid isagoo soo hijrooday wuxuu u yimid qoysaskii yahuud ee magaalada madiina deganaa oo soomaya maalinkaas markaasuu weydiiyey maxaad u soomaysaan waxay yiraahdeen waa maalinkii ilaahay nabi muuse badbaadiyay fircawn halaagay saas daraadeed baan u soomaynaa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam nabi muuse annaga idinka xigna annagana idinka xaq leh waa soomay nabigu soonkeedana waa amray ummadda isaguna waa soomay ummadiisana waa amray nabigu sallallahu alayhi wasallam maalinka in la soomo intaan ramadaanka la waajibinin maalinka soonkeedu waajib u ahaa yawm ashura soonkeedu waajib u ahaa waxa dhacday maalin maalmaha kamid ah markuu waagu bariyay kadib inuu nabigu sallallahu alayhi wasallam ogeysiis bixiyay oo uu yiri ninkii aan wax cuninow maanta soon waa ashura ninkii wax cunayowna maalinka inta ku laaban soomana oo afhayso يعني cunto damba ha cuni waxa hadiista ay ka qaadanayaan inay waajib ahayd ramadaan ka hor ramadaan markii la waajibiyay kadib waxay soonkeedu noqotay sunno noqday waajibnimadii baa laga soo dejiyay wuxuu noqday sunno cidii rabtana soomi cidii rabtana ay iska dayn karto waxa nabigeena sallallahu alayhi wasallam ka sugan marka maalinkaas yahuudu soomi jirtay isaguna soomay ummadana amray gadaal dambe nabigu sallallahu alayhi wasallam waxa uu yiri sanadka uu dhiman doono waxirka dhimashadiisa waxirka hor la in baqiitu ila qaabilin la asumanna taasi'a nabi sallallahu alayhi wasallam hadaan gaadho sanadka soo socda waxaan soomi doonaa sagaalaadka bimaana maalinkii tobnaad oo dhaqan yahuuda iyo lagu arkay oo nabiguna waxay ahaan ugu yimid oo sida uu ku waafaqay ah yaa waxa gadaal ka yimid dhaqankii yahuuda iyo khilaafa iyo nasaarada nabigu sallallahu alayhi wasallam marka wuxuu yiri hadaan noolaado sanadka soo socdo oo gaadho sagaalaadkan soomi doona culimadu waxay ka fahmeen tobnaadkii meesha lagama saarine sagaalaadka iyo tobnaadka la isla soomaya oo ashuraana waa la soomi maalinka ka horeysay sagaalaadkana waa la soomay si loo khilaafo yahuuda loo khilaafo hadaba sida sunnada wax weeyaan in labada bari la wada soomo maalinka 9ka iyo maalinka 10ka haday maalinka 9aad ku dhaafto Abdullah ibn Abbas waxa ka sugan inuu yiri maalinka 10aad iyo maalinka ka dambeeya soom bimaana si aad wali u khilaafto macnaha hadaad 9aadka ka gaari weydo oo 10aadka soonto 11aadkana ku dar marka sunnadu waa sidaas markaan baaray
باريستا بشو حلقة دلتي محرم إلا أنت معلومات كان هيو عالم كإسلام كقارنا وحيليهين هبينك 4 دلت و4 بيش محرم كو أهيدوه بمعنى ما أنت السديد ويمركها عاوي سقالاتك وخميس تبرئة طوبانات كنا ومالك الجمعة سيداسي وعركتي قيب الله رنو عالم الإسلامي كم ذا عالم الإسلامي غير كم ذا قار كم ذا وحيليه وحي دلتي خميستي ومالك خميستي كو كدهيا ساس دلادي السقالات كوحو نقونا يا إيجا مركا لفيريو جمعة طوبانات كنا وحو نقونا يا سبت ذا لوضع أركتي عالم الإسلامي تشرته هدي مركا إنك أنت بدن أركتي ذا هوري السجن بالراعي تشرني إن برينا الله صومه سمعنا الله صومه هذا هلي كرتو إن خلاف كما كبحض السدح دبري وذا صومتنا كسي فيها خميسته سمعنا سبت ذا هذا تسكو درتو وركاو ميلبو يا لا مركز يا مرنكم ما تشرت ذا مركز السدح تسكو دري كرتان تسكو درا ديك البريء يجمعه خميسته يجمعه الله صوم إن شاء الله تعالى أشرك كوتشر النبي وحكوشة صلى الله عليه وسلم ما نكاتبناد أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها يعني إلهي وحان كسر يابو لأشرك جربا إن ما نكاتبناد صون كذا إلهي كبر فوق السامحه سنة كي كهر ري دم بيجي لقلي مركز سنة دم بيجي دوار مركز وأشر وين هذه أين نسومي كرينين أنت إذا بدن لبدا بري أن كنت أكسرنا إن شاء الله تعالى تصنع دين برارو ربي جزاكم الله خير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته